waxaan mar walba u taagannahay horumarka bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inagoo la garab taagan taageero dhan walba ah sida waxbarashada caafimaadka iyo gurmadka xilliyada adag sida abaaraha fatahaadaha iyo musiibooyinka kale anagoo fahansan in kaabayaasha dhaqaale ay yihiin lafdhabarta horumarka waxaan xoog saarnay shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo himilooyinkooda waxaan hirgelinay macadka tababarka iyo shaqo abuurka dhalinyarada ee Banaadir Training Institute BTI kaasoo gacan ka geysanaya horumarka xirfadaha farsamada gacanta iyo kobcinta nolosha dhalinyarada BTI waa qayb muhiim ah oo kamid ah qorshaha aan ku doonayno inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu abuurno mustaqbal ifaayo in ka badan 10 sano waxaan garab taagnayn dadkeena danyarta ah oo ay la soo darseen duruufaha adag anagoo la garab taagnayn taageero maaliyadeed oo muhiim u ah soo celinta noloshooda waxaan gacan ka geysanay soo celinta nolosha dadkii ku waxyeeloobay iyo kuwii hantidooda ku waayay musiibooyinkaas sida fatahaadaha ka dhacay qaar ka mid ah gobolada dalka anagoo ugu deeqnay taageero maaliyadeed sidoo kale waxaan qayb ka qaadanay taageerida dadkii ku waxyeeloobay musiibooyinkii Sooba 1 iyo Sooba 2 anagoo ugu deeqnay taageero maaliyadeed oo aan gaarsiinay isbitaalada iyo goobihii kale ee loo asteeyay waxay shirkadu taageero maaliyadeed ka geysatay dadkii ay saameeyeen abaaraha ka dhacay qaar ka mid ah gobolada dalka waxaan kaalin weyn ka qaadanay dib u dhiska kaabayaasha muhiimka ah ee fududeeya isku socodka bulshada sida dhismaha wadooyinka muhiimka ah talaabooyinkani waa kuwo lagu xoojinayo horumarka dhaqaale iyo isku socodka bulshada Soomaaliyeed waxaan hormuud u noqonnay dhiirigelinta dhalinyarada isdhexgalka bulshada iyo horseedka nabadda waxaan naga go'an inaan sii wadno garab istaagga iyo caawinta bulshadeena xilliyada adag taasoo ay barbar socoto fidinta adeega korontada dhammaan gobolada dalka si aan ugu dhiirigelinno ganacsatada koronto la'aan awgeed hal abuurkoodu fulin waayay anagoo u ballan qaadayna joogteynta tayada iyo adeeg wanaagina looga bartay